الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan halkani baaq nabadeed uga dirayaa dhammaan deegaanada dadka Soomaaliyeed ay degaan isla markaana ay colaadu ay ka taagan tahay iyadoo colaadaasi aanay ahayn mid gaalo iyo muslimiin u dhaxaysa balse ay tahay mid u dhaxaysa dad muslimiin oo walaalo ah oo deegaan wada dega qaar ceel isku leynaya oo dar ay biyo ka cabaan isku leynaya qaar dhul isku haysta oo kala sheeganaya dhulka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay dad isir iyo qabiil isu leynaya oo qabiil kale uu ku duulaan yahay iyo arrimo kale oo adduunyo ah oo seera ay ka mid yihiin. waxaan doonayaa walaalayaal inaan laba xadiis halkan ka soo gudbiyo. xadiis waxaan doonayaa inay fahmaan oo ay weeleeyaan dhammaan dadka islaynaya. xadiiska labaadna waxaan doonayaa inaan la wadaago dadka cuqaasha ah, salaadiinta, waxgaradka. kabacdi waxaan doonayaa inaan codkan kooban aan diraayo ama muuqaalka kooban ay soo gaari doonay in insha Allah ta'ala uu xabaarsanaado ilaa 5 talo oo kooban oo aan soo jeedinayo shacab weynaha ama dadweynaha si guud aan ugu soo jeedinayo. xadiiska koowaad walaalayaal waxaan u hadiyeynayaa dadka walaalaha islaynaya waxaanan dareesinayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wax arrimahan dhacaya iyo colaadahan dadka muslimiinta dhexdooda ka dhacaya waxa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka yiri. xadiiska Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu warinayo wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن. قال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا؟ قال لا إلا أنه ينزع عقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. حديث كان ولا لي الوين نبي صلى الله عليه وسلم وحي نوغو رمي الصحابي أبو موسى الأشعري وحلي الرسول كإلهي وحي نوغو رمي تري أرمها قيامها الساعة مانة قيامة يدعي دون أرمها كهرية علامة ضوء كتسينية kuu tilmaamay saacadii qiyaamaha ay soo dhowdahay. waxaanu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri saacada qiyaamaha horteed waxa dhici doona wax loo yaqaan al-harj. waxaa la weydiiyay rasuulka Ilaahay oo harjigu waa maxay? wuxuu waa beenta iyo dilka. waxay saxaabadu weydiiyeen ma sida maanta aan isu dilaynaaba? maya buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam maaha dagaalka iyo dilka aad dilaysaan gaalada ee aad la dagaalamaysaa muslimiin iyo gaalo iskaga hor imanayaan laakinahu qatlu ba'dikum ba'da وإستيلك يدنك إستيليسان. النبي صلى الله عليه وسلم سي صحابة وفهمان معناها سي وحاول وديلك وننك ديليا جاركيس قفك إهل كيس جارك الله الديغان كالله وديليا وحديليا ولالكي وحديليا أديركي وحديليا إناديركي وتصالي عشو النبي صلى الله عليه وسلم وكاني بلو في رسمانت الديغان دادك مسلمين تايكو دايالاميان ديغان دادك الصومالية دايكو دايالاميان دايالادو ايكا سعودان dadka isdilaya waa dad qaraabo ah. ninba wuxuu dilayaa adeerkii oo dawladda ku soo jira ama qabiilka ku soo jira ama qolada ka soo horjeeda ku jira buu dilayaa. ka dhinaca kale ka soo jeedana wuxuu dilayaa qof kale oo ehelkiisa oo dhinacan kale ka soo jeeda. awoowayaal baa la isu yahay, abtiyaal baa la isu yahay, walaalayaal baa la isu yahay, gacal baa la isu yahay, waa la kala qabaa, waa la isu dhaxay, waa la wada degan yahay, haddana waa la isnaynayaa. saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam muuqaalka noocaas way la yaabeen. waxay maskaxdooda markiiba iska weydiiyeen waxana sidee macquul u tahay. isla yaabkii maskaxdooda ku jira way banaanka keeneen waxaana ku cabireen erayada lagu cabiro markaad wax la yaabto. waxaana yiraahdeen subhanallah wa ma'ana uquluna. ilaahay baa xumaa kana saan waxaas wax la yaab la weeye oo rasuulka ilaahay ma waxaanu isleenaynaa oo ninku adeerkii dilaya oo in adeerkii uu dilaya oo jaarkiisa uu dilaya oo walaalkii uu dilaya annagoo caqliyada alamiya. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu maya xilligaasi dadka nool waxa laga siibaya caqliyada laga siibaya garaadka laga siibaya fahanka laga siibaya waxuma garanayaan waxuma fahmayaan waxuma weelanayaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hatta yahsaba ahadukum annahu ala shay ila uu qofku isu maleeyo inuu macna u dagaalamayo. deegaankaygii baan difaacaya, dadkaygii baan ilaalinaya, darkaygii baan difaacanaya, seerahaygii baa lagu soo duulay. macna noocaas waa dhulkan Ilaahay baa iska leh malihida adigu waa dhul Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu iska leeyahay. inta yare taakada waxa weeye mitir iyo dhowrka taaka ah
ee lagugu aasi doono kaliya ayaad ka leedahay laakiin dhulkani meel kale aad leedahay ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iskale ilaahayna ciduu doonaa buu dhaxal siiyaa dhulkani ciduu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka raraa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxay u maleynayaan inay macna ku dagaalamayaan dowladnimo difaacayaan qabiil difaacayaan dhulkooda difaacayaan walaysa calaa shay wax macno ku fadhiyaan nama jirto nabigu sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay xadiiskaasi saxiixa walaaliyaan baan waxa weeye u diraya dhammaan walaalada islaynaya waxaana leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka yiri alqaatil walmaqtuul fi an-naar labada muslimiinta ay daltaqa almuslimaani bisayfayhima hadii labada muslimiinta ay isula yimaadaan hubkooda waa waxa maanta dhacay hub baa la soo adeegsanaya madaafiic baa la soo adeegsanaya qoryaal la isku dhacaya alqaatil walmaqtuul fi an-naar ka wax dilay iyo kala dilay labadaba naarta ay galiyaan baa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay walaal maxay macna ku sameynaysaa inaad adeerka walaalka abtiga seediga inaad disho maxay macna ku sameynaysaa adigoo la dhulkayga difaacaya adoo la seerahayaga difaacaya adoo la ceelkayga difaacaya adoo la darkayga difaacaya adoo la qabiilkayga iyo tolkayga difaacaya maxay ku taraysaa tolkaagu aakhira ma ku hadli doona wax ma ku qaban doona jannada ma ku gelin doona naarta ma ka badbaadin doona oo qodobka koowaad xadiiskaasi qoladaas ayaan u diraya xadiiska labaad waxaan u dirayaa cuqaasha iyo dadka wax garadka baan u diraya nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiiska Anas ibn Malik warinayo al-Allaamah al-Albani rahimahullahu ta'ala ana xasaninayo wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam inna min an-nas mafatiha lil-khayr maghaliqa lish-sharr وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه نبي صلى الله عليه وسلم وحليه ددك waxa kamida dad khayrkiyo wanaaga fura oo sharka xira waxa sidoo kale kamida dad sharka fura oo khayrka xira ayaa kamida ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu sugnaaday wanaag fatuuba لمن جعل الله مفاتيح الخير على يدي عد إلهي سبحانه وتعالى فرياش خيرك وقعنته دوقلي هلاك يوادي نار النوح سقنادي لمن جعل الله مفاتيح الشر على يدي عد إلهي سبحانه وتعالى فرياش شرك وقعنته دوقلي سلطانك عاقلك جرادك وقاسك مدحوينها وزيرك أقاسمها حلبانك مايرك برصافك ينتيتل كستو لغو waxaway wax lagu yahay dawlad ha laga noqdo amaba qabiil ha laga noqday waxa uu leeyahay qof waliba labadaas famid buu leeyahay inuu noqdo qof khayrkiisa wanaaga furaya oo sharka damiya iyo inuu noqdo qof sharka furaya oo khayrka daminaya waxaan ku talinaya oo u soo jeedinaya oo kula dardaarmaya dhammaan dadkaasi aan taytalada kala duwan sheegay iyo inta aanan garanaynin taytalada kala duwan leh inta jaahle inta ganacsadada ay xoolahooda jaaha kule inta masafkooda iyo aqoontooda kule iyo inta kaleba qof kasto oo jaahilaba waxaan kula dardaarmaya inuu noqdo mafaatiixa lil khayr dadka wanaaga u horseeda nabadda u horseeda talooyinka wanaagsan soo jeediya laakiin dhiilada ka dheeraadaan wallahi billahi waxaan kaaga baqaya walaalkayga dhiilada la imanayo walaalkayga ku faraxsan in qabiilkoodu uu dagaalamo oo ay dad laayaan walaalka ku faraxsan inuu maamulku ka tirsan yahay dad laayaan oo ummad la gumaado oo la xasuuqo oo dhiig la daadiyo oo cid la cuno ku farxayaa waxaan kaagala talinaya oo kaaga baqaya inaad maalinta aakhiraha timaado adigoo af ku dhiigla ah oo lagu qabsado boqolaal muslimiin oo la dilay dhiigoodii la daadiyay in lagu qabsado adna dadka dilay waa kamid tahay hadda ma dilin ku darso laakiin maxaad ahayd baraha bulshada ka taageeris statuskaad ka taageeris niyadaad ka taageeris bagabaad leedahay hal la dilo hal la laayo hal la cuno hal la gumaadaad lahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta aakhiraha ku weydiinaya aday ku taala sida aad soo badbaadinayso waxaa leeyahay cuqaal iyo madax iyo salaadiin iyo dowlad iyo cid ka tirsan oo dhanba maamul kasta iyo xil kasta oo aad haysaba uga faa'iideysan maanta inaad noqoto qof khayrkiisa wanaaga fara oo sharka iyo xumaanta iyo colaada qaybtaada ha ka noqon ugu dambeyn waxaan talooyin u soo jeedinayaa shacab weynaha si guud oo dhan waxaan ugu soo jeedinayaa talooyinkani guud inay qaataan qodobka koowaad oo soo jeedinaya waxa walaalkay dhageysanayo ha ka qayb qaadanaya dhiirigelinta walaalada islaynaya ha caadifad hadlin dadka islaynaya dhinac ha la soo safanin qowl ha kaga qayb qaadan hadal ha kaga qayb qaadan ficil ha kaga qayb qaadan niyad ha kaga qayb qaadan taageero ha kaga qayb qaadan ducaad kooxdu ducaysta ilaahay kooxda u hiili qolada kala ha cuntee ha kaga qayb qaadan waa taladayda koowaad way talada labaad daminta colaada ku darso walaal erey wanaagsan hadal wanaagsan ficil wanaagsan niyad wanaagsan waxaad awoodi karto oo colaada lagu daminayo qayb ka noqo haddii aanad qayb ka noqon kareenina ka aamus
oo waxa weeye faraha kala bax niyadana ha ka taageen muslimiintaasi islaynaysa qodobka saddexaad dhaawacyada iyo dadka soo dhimanaya waxaan leeyahay dadka soo dhaawacmaya dadka soo barakacaya hooyooyinka agoonta masaakiinta fuqarada ha la soo dhaweeyo guryaha la siiyo dhaawacooda waxa weeye ha la kabo waxa loo qabto cisbitaalada ha lagu soo dhaweeyo daaweyn ha loo sameeyo ha la taageero niyadooda ha la dhiso ha lagu dhiirigeliyo inay waxa weeye xumaanta ay ka hadhaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keenaan dhibaatadaas ay sameeyeen qodobka afraad afkaaga gacantaada xoolahaaga muslimiintu ha ka nabad galeen nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka waa qofka ay muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan muslimiintu ha kaa nabad galaan afku dhiiglaha noqonin qalbi ku dhiiglaha noqonin sidoo kale gacan ku dhiiglaha noqonin qof xoolihiisa ku bixiya oo hubka u iibiyana ha noqonna ha odhan keegaa sii qaado imsaa la siiyaa intaa anaa diray hore u sii soco ha odhan qeyb ha ka noqoni qodobka shanaad oo ugu dambeeyaan qof walba u soo jeedinaya walaalayaal waxa weeye u duceeya walaalada islaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu qalbiyadooda burcad isu mariyo in ilaahay subxaana wa tacaala uu isu soo dhaweeyo wanaag uu dhexdooda u dhigo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga barino ilaahay subxaana wa tacaala baan ka baryaa dhammaan muslimiintu meel kasta ay joogaan oo dhibaata kusoo gaadhsan ilahay dhibaatada ka dulqaado in ilaahay qalbiyooda isu soo dhaweeyo in ilaahay qalbiyooda burcadu isu mariyo in ilaahay subxaana wa tacaala dowlad islaamiya oo xaqa iyo nagu xukunta ilaahay subxaana wa tacaala uu noo keeno dhammaan maamulada jirana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu wadada saxda u waafajiyo madaxda taytal kasta ay wataan salaadiinta iyo kaaba qabiiladu taytal kasta ay wataan iyo nooc kasta uu mansabkoodu yahay qofka aqoon-yahanka nooc kasta uu mansabkiisa iyo heer kasta uu darajo ka gaadhay culummada nooc kasta ay leefal ay leeyihiin kooda ugu sarreeya ilaa kooda ugu hooseeya ardayga level kasta uu ardaynimo ay leedahay waxaan idinkula talinaya in ilaahay